بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، mahad ilaahi subxaana wa tacaala u sugnaatay dhammaanteed. waxaan ku jirnaa weli maalmihii barakaysnaa ee cashara dilxija. qofka muslimka ah waxaa laga maarmaan ah maalmahan inuu ilaahay subxaana wa tacaala ugu dhowaado camal kasta oo daacad ah, camal kasta oo ilaahay subxaana wa tacaala uu jecel yahay. waxaa dhacda mararka qaarkood dadka qaarkood inays yiraahdaan haddaydan ilaahay subxaana wa tacaala ugu dhowaanaynin camal badan, salaatuleyl iyo sawm aada u badan iyo adkaar badan, haddaydan intaas samaynaynin acmaasha yaryarkaa daacada ah, ilaahay subxaana wa tacaala idinka aqbali maayo. qofka muslimka waxaa laga maarmaana inuu ogaado camalka uu ku badbaadayo ma garanayo. aragtidu ama miisaanku ma ahan camalku intuu la egyahay. miisaanku waa camalkaasi sida ilaahay subxaana wa tacaala uu aqbalo, sida camalkaasi uu uga barxla yahay riyaa, sida uu yahay ikhlaas u haysto. miisaanka dhabta ahi taas weeye. sida macaasida aysan ulahayn yaraan ayaysan daacaduna ulahayn yaraan. waxaad og tahay qofka muslimka ahow in aabaheen aadam calayhi salaam jannada looga soo saaray hal dembi oo galay. sidoo kale ibliis calayhi lacnatullah waxaa ilaahi subxaana wa tacaala ku lacnaday oo naxariistiisa uga dheereeyey oo maalinta yowm alqiyaame uu naarta u galay uguna waaraya. waa maxay? waa hal dembi daraaddeed, hal dembi keliya uu sameeyey. ilaahay subxana wa tacala markiisi uu diiday hal mar ayaa rabbi subxaana wa tacaala intaas oo dhibaato ah u gaarsiiyey ibliis. wuxuu yidhi anas bin malik radi allahu canh, waa xilligii anas bin malik radi allah saxaabadu ay noolaayeen ayuu wuxuu leeyahay waxaad samaynaysaan acmaal, taabiciintu ula hadlaya iyo saxaabadii kaaga dhowey, waxaad samaynaysaan acmaal baad samaynaysaan aada u arkaysaan ama agtiina ka yar oo ka jilicsan tinta. annagu haddaanu saxaabanahay xilligii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu noolaa waxaynu ku tirin jirnay min almuubiqaat, yani muhlikaat, waxaa acmaashada qofka halaagta oo naarta gelisa ayaynu ku tirin jirnay. waa xilligii ay noolaayeen qaar ka mid a saxaabatu rasuulillahi sala allahu alayh wasalam. maxaad umalaysaan maanta? waxaa jirta qiso oo qofka muslimka ay tusaysaa, qofka muslimka waxay tusaysaa acmaasha inaan la fiirin yaraantooda iyo weynaanteeda, inaan la fiirin ee la fiiriyo camalka meesha ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa uu ka yaallo. abu muusa alashcari radi allahu canhu ayaa markii uu dhimanayay waxa uu soo kulmiyey carruurtiisii. markaas ayuu wuxuu ku yidhi yaa bani udkuruu saaxiba aragiif, carruurtaydiiyow waxaad xasuusataan oo aada xustaan ninkii rootiga. hadalkaas markuu yidhi ayaa abu muusa alashcari radi allahu canhu waxa uu galay koomo, uu suuxay. markii uu soo baraarugay ayay carruurtiisii weydiiyeen oo waxay yidhahdeen aabba waxaad tiri intii aadan koomada gelin ka hor waxaad xasuusataan saaxib aragiif. man huwa saaxib aragiif? markaas ayuu uga sheekeeyey. wuxuu yidhi waxaa jiray nin raahib ah oo noolaa xilligii reer bani israa'iil. raahibku waa ninka shaykha ah ee dadka ka dhex baxa ee meel bannaana intuu dego halka ilaahi subxana wa tacaala ku caabuda, dadka ka dheeraada. 70 sano ayuu buulkaas ama soomacadaas uu leeyahay buu rabbi subxaana wa tacaala ku cibaadayay. 70 sana ayuu wuxuu ku jiray sujuud iyo rukuuc iyo xus ilaahay subxaana wa tacaala. ninkaasi markuu muddo meeshaa joogaba oo cibaadadaas uu ku jiraba hal mar ayuu soo degaa oo magaalada yimaadaa. markaas ayuu wixii xaajaada u baahan yahay, adeega iyo cuntada iyo waxaas ayuu gataa. ma soo noqda in muddo ah, sanad ayaa laga yaaba inu sidib usoo laabaa. 70 sano mar uu cibaadaysanaya kadib ayuu maalin maalmaha ka mid a wuxuu soo galay magaaladii si uu xaajadiisa iyo dantiisa magaalada uga soo qaato. wuxuu arkay haweeney
aada u qurux badan shaydaankuna waa ka faa'iidaystay wuxuu doonaya ninkan raahibka ah ee caabidka ah inuu lumiyo markaas ayuu gabadhii wuxuu u saaray qurux ninkii raahibka ahaa oo caabidka ahaa 7 maalmood iyo 7 habeen ayuu gabadhii gurigeeda la joogay oo wuxuu kula noolaa faaxisho iyo zina walciyaadu billah 7 maalmood kadib ayuu soo baraarugay daboolkii indhihiisa saarnaa ayaa faydmay markaas ayuu wuxuu dareemay inuu meel xun dhex fadhiyo oo ilaahay subxaana wa tacaala caasiyey wuu baxay isagoo toobad keena tallaabo ma qaado ilaa sujuud buu u dhacaa tallaabo kale ma qaado ilaa sujuud buu u dhacaa wax uu sidaas ku jiraba oo uusan cunto cunin oo uusan biyo cunin ayaa maalintii gelinkeedii dambe waxa uu kusoo dul dhacay oo kusoo dhex dhacay koox niman ah oo meel fadhiya waxay ahaayeen niman fuqara ah masaakiin waxba haysan oo 12 nin ah 12 nin waxaa quudiya maalin walba nin raahib ah nin kaloo isaguna caabido meel jooga ayaa u yimaada markaas wuxuu maalintii siiyaa xabad rooti nin kastoo iyaga ka mid ah xabad rooti uu siiyaa macnaheedu waxa way maalintii inuu keeno maxay 12 xabo rooti maantay raggu waa 13 nin ضيف iyo marti baa jooga oo ah raahibkii toobadkeenka ahaa raahibkii cusbaa ee nimankan quudinayay ma tirin ee wuxuu bilaabay sidii caadadiisa ahayd inuu nin walbaa siiyo maxay xabadiisii rootiga ahayd waxaa dhacday marka xabad ka mida rootigii in ay kusoo dhacdo gacantii dayfkii cusbaa waa kee waa raahibkii toobadkeenka ah taa macnaheedu marka maanta maxaa wey in nin ka mida fuqaradii iyo masaakiintii maanta uu qatan yahay ilaa xabadiisii yaa qaatay martidii baa qaadatay ninkii qaday ayaa raahibkii rootiga qaybinaya wuxuu ku yidhi aw rootigaygii markaas ayuu raahibkii wuxuu yidhi wallahi ma katamtu minka shay canka shay waxba kaama qarin ninkii qaday ayaa wuxuu yidhi rooti aniga maanta ma helin raahibkii raggiiba weydiiyey wuxuu ku yidhi war ma idinku jira nin 2 xabo rootiya qaatay nin kastaa wuxuu yidhi maya raahibkii ninkii qatanaa ayuu la hadlay wuxuu ku yidhi wallahi rooti inaadan igu lahayn maantay wax kaama qarin sidii aan u keeni jiray 12 xabaan keenay wax aan kaala noqday iyo wax aan kaa ceshtay ma jirto waan iska tiri ninkii raahibka ahaa ee toobadkeenka ahaa ee xabada rootiga qaatay waxa uu maqlayay dooda dhex maraysa ninka miskiinka ah ee ninka raahibka ah wuuna og yahay inuu isagoo meesha dheeraad ku yahayo ninka rootigiisii uu haysta isaguna aad buu u gaajaysan yahay oo gaajo xun baa haysta markaas ayuu xabadii rootiga ahayd uu hayay ninkii lahaa u tuuray miskiinka ah famaata araahibu fii laylatihi isla habeenkii ayuu dhintay marka ninkii raahibka ahayo toobadkeenka ahayo maanta meesha martida ku ah waa dhintay markuu dhintay ayaa waxaa la miisaamay cibaadadii uu sameynayay 70 sano 70 sano 70 sana cibaadadii uu ku jiray sujuudii iyo adkaartii iyo rukuucdii iyo alla kacabsigii ayaa miisaan la saaray waxaa kafada kaloo miisaanka la saaray 7 maalmood iyo 7 habeen ee uu la jiifay naartii uu zinada iyo faaxishada kula jiray markaas ayaa waxaa rajaxnaatay cuslaatay 7 maalmood 70 sana cibaada waxaa cuntay oo baabi'isay 7 maalmood 7 maalmood ayaa haddana kafad la saaray kafada dhinaceedii kale iyo miisaankii waxaa la saaray raqiifkii iyo rootigii uu ninka miskiinkaa u tuuray xaqiisa u celiyay markaas ayaa waxaa rajaxnaatay xabadii rootiga ahayd ee uu ninka miskiinkaa siiyey idan ikhwaani akhwaati fillah waxaan u jeednaa marka 70 sano oo cibaado ah waa muddo aad u badan oo qof ilaahay subxaanahu wa tacaala daraadiis uu guri isugu soo xiray u cibaadaysanayo waxaa baabi'isay 7 maalmood oo zina ku jiray
toddobada maalmood xoog badan oo 70 cuntay iyadana raqiif xabad rootiya oo nin miskiina uu siiyey oo xaqiisa uu celiyay ayaa rabbi subxaanahu wa tacaala ku badbaadiyey ninkaas kuma badbaadin 70 sane muxuu ku badbaadiyey hal raqiif oo cunay hal raqiif oo ninkii lahaa uu siiyey maxaan ka faa'iidaynaa qisada marka acmaasha in aan la yaraysan camalka saalix oo wanaagsan in aan la yaraysan saasuu rasuulku salawatullahi wasalaamu caleyh saxaabada ku dhihi jiray laa taxqiranna min almacruufi shay-an macruufka iyo wanaagga waxba ha xaqirin waxba ha ka xaqirin aadba walaalkaa kula kulantid ku qaabishid weji furan dhool caddayn iyo bashaashnimo sidoo kale waxaad wada ogtihiin qisadii gabadhii reer bani israa'iiliyaduna oo ahayd ka mid ahayd dumarka jirkooda ka ganacsada jirkeeda iibin jirtay zaniya baqaaya ayay ka mid ahayd iyadoo jidka marayso haraadan ayay ceel timi ceelkii bay ka cabtay kadib banaanka markay usoo baxday waxay aragtay ey isaguna haraadan markaas ayay waraabisay markaasaa rabbi subxaana wa tacaala camalkeedii ammaanayo u dembi dhaafayo jannaduu geliya ilahi subxana wa tacaala sidoo kale nin isaguna ka mid ah reer bani israa'iil xadiidkii bukhaari muslim ayaa haraadanaa markaasuu ceel soo maray ceelkii markii uu kasoo cabayo soo baxay ayuu wuxuu arkay ey haraad daraaddiis ciidda cunaya markaas ayuu wuxuu yidhi eygaani haraad wuxuu maantay ka gaaray meeshii anigu aan ka gaaray hadaayay markaasuu intuu degay ayuu qofkiisii biyo ugu soo shubay oo waraabiyey markaasa ilaahi subxaanahu wa tacaala isagiina u dembi dhaafay oo jannada geliyey saxaabada rasuulka bay diin sal alla alay wasalam waxay yidhahdeen oo bahaa-imta iyo xoolaha ajar miyaan ka helayna haddii aan wanaag u samayno aan waraabino markaasa rasuulku wuxuu yidhi sal alla alay wasalam beer kasta oo qoyani wixii la siiya waa sadaqo sidoo kale xadiidkii abi hurayra radi allahu an fi saxiix muslim rasuulku sal alay slam wuxuu yidhi waxaan arkay nin jannada ku gadgadoomaya sababta jannadaa gelisana maxay ahayd dariiqa muslimiintu ay maraan ayuu qodxo iyo dholooyin ku jajaba ka leexin jiray camalka wanaagsan ha dhayalsan ma ogid kaad ku badbaadi lahayd inuu yahay si kastoo agtaada uga yarya macsiyadana ha yaraysan ma ogidoo ma garanaysid mid aad ku halaagsami lahayd in ay tahay ma garanaysid ha eegin yaraanta macsiyada ee waxaad eegtaa rabbiga aad caasinaysid cadamadiisa iyo weynaantiisa sidaa daraaddeed ikhwaani fillah waxaa laga maarmaana maalmahan camal kasta oo agteena ka yar inaa ilahi subxana wa tacala ugul ma yahay camal ilahi subxana wataala ka yahay oo jecel yahay cibaado ilahi loogu dhawaanay ma yahay inaan sameyno muqaabilkeeda inaan ka dheeraano camal kasta oo xaaraan ah macsiyo ah rabbi necab yahay subxaana wa tacaala oo uusan jeclayn lagunala xisaabtami doono maalinta yawma qiyaame waxaa ilahi subxana wa tacala ka baryaynaa inuu waafajiyo camalka saalixa maalmahan iyo keyrkoodba waxaan rabbi subxana wa tacaala ka baryaynaa inuu naga aqbalo wixii camal aan samaynayno rabbi subxaana wa tacaala inuu dembigiina dhaafo dembiga waalidiinta dhaafo dembiga muslimiinta kuwooda nool iyo kuwooda dhintay waxaan rabbi subxana wa tacaala ka baryaynaa qof kastoo muslima oo korba iyo dhibaato haysa inuu rabbi subxana wa tacala ka faydo rabbina subxana wa tacaala diinta iyo ahalkeedaba uu gargaaro وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته